rasuulku wuxuu yidhi ina rabbakum ama ina allaha xayiyun kariim ina allaha ilaahay xayiyun waa mid xishood badan kariimun oo deeqsi ah kariimku kariimnimada ilaahay subxaana wa tacaala waa mid isagoo aan waxba la weydiisanin isagoo bixinaya wey binaadamka markaad wax weydiistay ku siinaya ma garatay karamkiisu karam la sawiri karo deeqsinimadiisu mid aan sawiran karno maaha marka ilaahay subxaana wa tacaala waa xayiyun waa kariim ina allaha xayiyun kariimun ilaahay waa xishood badan yahay waana kariim yastaxyi wuxuu ka xishoonayaa min cabdihi addoonkiisa ama min arajuli ruuxa biniaadamka uu ka xishoonayaa idaa rafaca ilayhi yadahu haddii uu maaragtay gacmihiisa kor ugu taago an yaruddahumaa inuu soo celiya sifran iyagoo maran khaaybatan oo hungoobay suurtagal ilahay kama ah suurtagal kama ah markaa qofkan le ducadaydii baan la ajiibin ama waxaan dan ugu jirin buu wadaa oo shar buu u yeedhanaya rasuul ilahay ka qabanaya wax ka khayr badan baa loogu bedelay kana waa laga qabanaya wax ka khayr badan waa loogu bedelay ama ducadii oo dhow ayuu isagu iska kala tuurayaayo oo odhanaya war waan ducaystay waxba laga aqbali maayo rasuul iska deynaya ducadii iska deynaya ama xaaraan iyo balaayo isagaa sun cunay oo jidhkiisa ma caafimaad qabo waxay tahay inuu soo nadiifiyo toobad keeno hadduu toobad keeno ilahay waa ka aqbalaya toobadii